السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلاتي هبون داود كسو دوادا برتا يوتيوب كان كلنا يول تي في وأعلى بكلا سعتان برنامج كلا جديسن قلبت برنامج كان waxa marti noogu ah mid kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer magaciisa saddex waxay Maxamed Xuseen Maxamed oo ku magac dheer Abwaan Daadixi oo aanu barnaamij horena ka qabanay galabtana aanu barnaamij isagoon studio-ga noogu marti yahay Abwaan ku soo dhawow marka hore saaxiibkay aad baan ku salaamayaa waana dhawayniyow diima dheeri saaxiib bulshadana dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan halkan salaam baan uga dirayaa aad iyo aadna wad mahadsantahay aad mahadsantahay Abwaan mar labaad iyo mar saddexaad baa soo dhawow gacmo furan ayaan kugu soo dhawaynaynaa Abwaan bal waxaad nooga warantaa aniga iyo akhyaarta iyo asxaabta iyo bulshadaba taariikhdaada soo koobaya halkaad ku dhalatay halkii waxbarashadaada asaasiga ahayd iyo halkaad soo kortayba nala wadaagantaa horta marka hore deeniyow anigu horta waxaan garanayaa ku dhashay gobolka Togdheer hawdkiisa isagaana ku barbaaray oo gobolka Togdheer iyo hawdkiisa intaas baan kala tabqaadiyo noloshayda aan ku soo qaatay halkaas aan magaranaysaa noloshayda ku soo qaatay aad mahadsantahay Abwaan in su'aal labadan ku weydiiyo waxbarashadaadii xagaad ku soo qaatay isla magaalada Burco waxbarashada waxaan ku soo qaatay horta qayb waxaan ku soo qaatay hawdka magaranaysaa intii kalena waxaan ku soo qaatay gobolka Togdheer imagara deewaanigaas waxaan ku dhalinyaradu wax la qabaadeeyaa anaga caajisina kulay Abwaanku taariikh badan baa ku duugan waa mid kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer ee hal abuur kale aan dhaho Abwaan inagu barnaamijka horusi galena bal waxaan ifafaale ama warbixin naga saamaysada isdhalan rog horta runtii maasadan isdhalan rog waxay ka hadlaysaa ma garanaysaa dhaqankay ka hadlaysaa marka habeenada kamid ah aniga ku sugan gobolka Togdheer ayaan waxaan arkay ma garanaysaa dhalinyaro ma garanaysaa labiska marka uu ka qaldan yahay si ma garanaysaa labiskooda ayaan qancin dabeedna habeenkaas baan ma garanaysaa maskaxdaydu ay fikirtay waxa si wadno turmeesha joogta ma qurbihiiba wax badan habeenka cadirta dabeedna habeenkaas bay ma garanaysaa waxa maasadaas ugu soo dhaxday maba aha maansa weyne waa wax yar kooban ma garanaysaa qadar xayisiina weeyaan marka maasadaas dhowr waxay ku bilaabmaysaa dhulkeenu hadduu hidda dhaabadiyo dhaqanka suubeena dhexyeel dad yahow idinkaa ka dhigay meelaan dhacaniya lahayn dhufays lagu dhuunto oo dabaylo ku soo dhacaan hablii boqorkiiyo dhaclaha dhexdooda ku geejin jiray hablihii dhaayihii arkaa dharaara u soomayeen inay dhajis iyo xidheen dhar wada gaagaabanoo intay dhaqankii dhigeen sharaftii ay dhaawaceen isdhilan rogga gaadhay iyo dad yahow dhaawacan arkaa idinku waa dheelsateen hablii dheehiya lahaa labeenta dhalaalaysee burcadku dhaashi uu ahaa dawadan laysku dhoobayee jidhkoodii dhalan rogtiyo xinjirahan dhiiggee guntabay dad yahow dhaawacaan isdhilan rogga gaadhay iyo dad yahow dhaawacaan arkaa idinku waa dheelsateen hablii dharaar iyo habeen hoygooda aan dhaafi jirin hablii dhiidhihi jiree xishoodka ku dhuuman jiray inay dharla'aan baxeen oo weliba aanay dhaadanayn isdhilan rogga gaadhay iyo dad yahow dhaawacaan arkaa idinku waa dheelsateen intaa yaroo magaranaysa kooban ayay markaa maansada eriga aad mahadsantahay Abwaan kulay waxaan filayaa fikirkayga maansadaasi dhalinyaro badan ayaa markay dhageystaan wax ka bedeli doontaa horeen ugu soconay barnaamijkeena galabta maansada labaad Abwaan ku soo qabanayo maansada gobonimo bal iyadana akhyaarta wax naga xasuusi aniga akhyaarta horta maansada gobonimo waa maaso ma garanaysaa runtii ka hadlaysa laba wax shay oo muhiim ah labada shay oo muhiim ah ka hadlaysa waxa weeye waa waalidiinteena iyo dalkeena hooyo ayay ka hadlaysaa waxyaabaha kala haysta waxa weeye waalidiinteena ma waxa weeye dhalinyaradeenna iyo waalidkeena waxa kala haysta weeyaan marka dhalinyarada taariikhka maasadan taariikhkii ka hadlaysaa ayay ka hadlaysaa marka runtii horta cudur kasta oo dunida soo gala dee gaaladu ma garanaysaa watanoo dawo u raadisaa dee inkastoo cudurkii karoonaha aan wax dawo weli loo helin marka waxaa jira cudurro Soomaalida ku dhaca oo aan dawo loo helin laakiin dadku aan cudur aqoonin waa tahriibka marka tahriibka marka wax dawo loo helin tahriibka marka runtii maansadan ayaa dadkii markii imka karoonuhu markuu soo baxay ma garanaysaa ayay dadkii laba u qaybsameen waxay dhaheen qaybi waxay tiri cudurkan corona ayaa ka noqday tahriibkii dawo waayo dawada meesha u yaaceen de garaysan
cudurkan ku dhacayo cidima tahriibayso qaybna waxay tiri dawadiisii maahee haddii koronahani baxo dhalinyaradu sidoodii bay tahriibayaan oo demokraanaysaa waxa ahaa marka maansadani garnaq bay ku jirtaayo dawadiioo saxa ayay sidaa marka waxay ku bilaabmaysaa iskulaaya adduunyoy waagii galac yidhaahdiyo galabtii la joogaba waa cibaaro gaaro ninbacaynku weeyaan haddii ay mid gaaxiyo u bilowdo godolkii marka ugu hooriyo geedaha ka goostay hadhow kuba galgalataa anna garashadaydii waxba yaanan gees marin gocashadan xasuusta leh waxaan uga gol leeyahay da'yartaa gumowdee geyigeeda wacaniyo guryasama ka guurtee geediga u wada raran ee marba goosankii tegey ma gafuhu qabsanayee ka macaashta gaaladu ma gefbaa ma godobaa ma waxaan go'ayno aan laga gudbaynba micnaha ma gefbaa ma godobaa ma waxaan go'ayno aan laga gudbaynba halkaa waxaa ku jira horta inay tahay magaraysa gudub la galay ay tahay marka Soomaalideena laba mas'ala ay u qaybsantaa waa qayb magaranaysa reer baadiyo oo miyiga ku dhaqan iyo qayb magaranaysa magaalada marka qaybta miyigu waxay ka caawdaan abaaraha ku dhaca runtii qaybtan magaaladana waxa aafiyay tahriibka marka qaybta miyigu aqligoodii maskaxdooda ka shaqaysiyaano waxay dhahaan tahriibkan abaarahan maxay noo keenaa waxay dhahaan duluubta inay noo keento marka qaybtan magaaladu may fikirino isma oran tolo tahriibkana maxay idin keenaa marka sababta haday tahay oo abaaraha ay keenaan garanaysa duluubtu tahriibkuna inuu duluub yahay oo magaraysa godob ilaahay laga galay ay tahay ayaa magaraysa halka ka cad waadii sidii ilaahay noo yiri u socda aynu socono oo wixii ilaahayna farayna waafaqno in tahriibka la waayo ayaan anu horta runtii halka u arkaa marka de waayo qofku markuu tahriibi maarad de qof kasta ilaahay baa irsaaqdiisa qoray de wuxuu magaraysa isagoo wax kasta haysta ayuu magaraysa dana de magaraysa qof aan ilaahay aaminsanayn weeyaan de magaraysa marka halka inuu de magaraysa dhibaatada ayay leedahay ma waxaan go'ayno aan laga gudbinba ka gudbaa waxay tahay inta gaari hooyaa wiil gabana kuriso gaajada u diido gasiinku cunayo gogol raaxalo wacan sidoo ugu gami lahaa kuntigu xirato markii ay gogashee sama ugu gargaartayna bal inuu gudoontiyo inuu guda abaalkiyo garowshiyaha joogay subax qura ka goosto sidii gaada gulfiyo guutooyin soo miray ka gadiyay indhaha oo la gureeyay garab kale ma gefbaa ma gudaba waxaan go'ayno aan laga gudbaynba ka gudbaa waxay tahay inta gaari hooyaa gabi sare ku noolayd oo aan gumaysiga shisheeyaha u gaarka iyo erigu haadshiyo gacandhaafka aan baran hilbihii ka soo go'ay ay uga galeenoo galaan jixinjixaynina intuu gacanta kaga dhigay uu ku riday god madow inuu go'ay inuu guray inuu geeriyoodiyo inay weli ku gigan tahay galbashadu sida ay tahay aan garanaynin xaajada waa sidii geed baxaayo markii uu ugu beelaba geed kala ka beermee miyaa laga garaabayn wixii gacanta ugu jiray geel iyo gamaan iyo ginigoo sarifaniyo guryo soo gandoodiyo jaga geed ku taaliyo googoos xariiriyo gogol lagu caweeyaba gidigeed xaraashto bal inuu ka soo go'o oo gacan u soo galo kuna gacalku keenana gees lagaga dareeyon gidigeed waxba u jirin oo saaka galangal madow iyo gabayo waxa kaga sugan waa sidii geed baxaayo markii uu gumbeelaba geed kala ka beermee miyaa laga garaabin ka gudbee waxay tahay geyigeena nubixii guudkiisa saarnaa mid kastoo gun yeeshaba markuu geedka rucubta leh godolkii ka laastuu halkuu deynta loo galay gudilaa amaahdii geyi uu shisheeyuhu gudihiisa joogo aanu garasho toosiyo u lahayn go'aan adag u guntaday u go'ayo xigtadiiyo qaraabada inta uu u gees maray gacantii ku saydhoo uba goohay gacallow wuxuu gabay wuxuu gafay wuxuu gees kastaba dhibay waa godobu taallee angooyo gunaanadu ducadana ku gees maro allahayo wadaagoba adigaan cid kala gurin qalbi shalay gudnaan jiray adaa godol ku soo roga ee goosan kaa hadhay geeyigooda wacaniyo garansii wanaaggo gogol raaxo ugu deeq marka runtii waxaanu leenahay bulshada dhallinyarada dee magaranaysaa dhulkiina aamina wax waliba idin joogaan waa maqlaysaan abwaanku bahal maanso bay noogu dhufto dhiirigelina oo dhallinyarada wax badan ka bedeli doonta ayaan filayaa abwaan aad baad mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo dhaweynaa studioga Yul TV abwaan xagga heesaha iyaga saa isku tiin bedelaadooda waarniyow dee horta niyo xagga heesaha dee magaranaysaa kuwa damba magaranaysaa ayaa niyow magaranaysaa dee bedeli jiray bal niyow dee cadhadunba ii geyso marmarka maartay qof kastaaba heesaha si uu bedelaaye aniga niyow magaranaysaa waxyaabaha magaranaysaa dunida ka dhacaa waxyaabaha magaranaysaa ayaan la kaashadaa marka hees baa jirtay heestan saalax qaasin qaade ee magaranaysaa wacanay adduunyada heestaasaan niyow beri qisa yar baa ku dhacday magaranaysaa waxay ku dhacday niyow inan baan magaranaysaa aan muddo wada sheekaysan jirnay dee runtii lama odhan karo sheekee magaranaysaa dee dhallinyaradu xiin bay u taqaanaaye marka adigu dee waan isu xiimi jiray haddaan imika dhallinyarada u fasilo dee dabeedna
inanta adigu muddo ma wada sheekaysan jirnay sow ma garanaysaa waxaan ka wada hadalnaa wax micno maahe waa miyaad seexatay iyo ma soo jeedaa iyo xabiib xalay ma garanaysaa dhiishka ay dhaqay wax noocaasa haa waxaas uma ka wada hadalnaa adigu wax soo gabagabaysmayoba maaha adigu sidii waxay ahaataba adduunyada waxbaa ka shaqeeye mid baas bay soo facebooka ka baratay oo kuwan dee lacagta leh ma garanaysaa dhaqaalaha leh haa dabeedna inantuba soo dusheeday ku shaxaysaaba anna ma fahansaniyo dee waxaan isleeyahay isagana xaggaasay dee jacaylkeeda dhabta la wareegtay dee anna ma fahansan haa dabeedna anigu muddo waxay sheekadii socotaba maalintii dambe baan dee ma garanaysaa isku arkay inankii inantii wada socda dabeedna markaan ku dhinaa ninkani muxuu ahaana waabay dafirtayba dabeedna habeenkii baan ma garanaysaa cadhadii kula dhacay heestii ma garanaysaa wacanaya adduunyada haa oo ahayd iyada hees qisa cajaayiba la dee marka waxay odhanaysaa tayda wacanaya qoftaa baas baa la dhahaa waxay odhanaysaa wacanee qoftaa baas intaan weligay noolahay wacanee qoftaa baas intaan weligay noolahay waxaanan ilaaweyn qofkan lagugu loohiyo sidaadii ku raacdee haddaad xurub islaatiyo camba buuran aad tahay isna uu cadilayo calool dhaansan leeyahay isna uu cadilayo calool buuran leeyahay haddaanu cawda fiidkii cayaartiisa fulinayn haddaanu cawda fiidkii cayaartiisa fulinayn calwaduu jidka u galay wadadeeda marinayn maxaa tegista debadiyo lacagtiisu kaa tari maxaa tegista debadiyo lacagtiisu kugu tari labataah wadaagto telefoonku xiintiyo dadka kuwiis jeceli ma wiiqaan dantoode kuwaayo itafirtaye mee wixii aan kugu dhiray wacaney samtiishaan firiiga ka dhigay iyo wixii qarashan ku galay dib u soo xasuusto marna kama hadhaaye haddaad weji casaantana igu walacsanaysay haddaad xubna cadaantana igu walacsanaysay kaa daba wareego nayaa kaama hadhaye kaa daba wareego yerey kaama hadhaye intay wax qarsiga tahay kala weerarkuna jiro intay wax qarsiga tahay kala weerarkuna jiro labataah wadaagto telefoonku xintiyo dadka kuwii isjeceli ma wiiqaan dantoode halkaasoo ma garanaysaa dee gabadhu dee lacag bay iga doonatay hadday qof caadiya doonatay kartoon bay doonatay kaasi wuxuu ahaa abwaandaan daheeye oo galabta barnaamijka marti noogu ahaa haddaba akhyaarey abwaanka waa arkayseen maasooyin fara badan heeso bedelaada كل كجيون منه أبوانك قلبت أنت أصلاً برنامج كسر بيرنا وحيد بروح كلاس عنده تامبرتنا يوتيوب كلنا هاي يول تي في على بكلاس عن برنامج كله جديسن هل كأوضم بيسوي حن له هاي أول ما صدى أوضم بيس كفته يو كبير بل ما صدى أنا جدنا warbixin naga sii runtii horta maansadani waa maansa jacayla waxa la dhahaa koftii kibriyo ku jabin iyadoo maansooyinka dambe ay kamid tahay baryahan loo curiyay marka iyadu qisa jacayla ayay ka hadlaysaa marka inaan bay qisadani ay ku dhacdo dabadna inanku wuxuu jeclaa inan baraha bulshada iska barteen dabadna inantaas muddo dheer bay wada sheekaysanayeen isaguna aad buu jeclaa magaranaysa dabadna muddo waxay sheekaystaanba inankii waa taqaanaa inanku horta dhalinyaradu runta ma sheegto inantii wuxuu sheegtay magaraysa dhaqaale iyo hanti aanu lahay ayuu sheegtay iyaduna inan bay ahayd heerkoodu dhaqaale iska leeyahayoo iska nolol barwaaqaysan ku jira oon dunida waxba ka ogeyn isaguna wuxuu iskaga noolaa qaartu gaskaska iyo magaraysa miyiga magaranaysa ayuu iskaga noolaa dabeedna markii magaraysa ay jacaylka bilaabeen ayuu ku yiri ka dunida dhisay daarahan iyo waxaad ka sheekanaysaa sameeyaaba waa aniga dabadna adigu waxay muddada sheekadii sidoo socotaba maanta dambe magaranaysaa inantii soo ogaatay waxaan magaraysa uu sheeganayaa inaanay jirin dabadna halkaas magaraysaa inantii jacaylkii kaga baxday dabadna halkaas arkay inankii maanta dib murugaysan dabadna masaan maansadan igu dhalatay marka maansadan laba fariimood bay sidaa labada fariimood ay sidaa dhalinyarada igu sidaayo horta midda koobaad waxay sidaa ragga waxay leedahay
raggu horta berigii hore mahmaha Soomaaliyeed baa waxay oran jirtay dumarka been baa lagu soo xirageliyaa runna waa lagu dhaqaa taasi horta meesha ka saaraysa oo wax magaraysa been lagu soo xirageliyo run lagu dhaqi karaa inaan jirin bay magaraysa meesha ka saaraysa marka waxay leedahay ragga qof walba runta iska sheego marka aad la sheekaysanaysid ee magaraysa runta iska sheeg hablahana mid bay u sidaayo horta niyo habluhu magaraysa jacaylkiiyo wax iska khaldan magaraysa dhaqaalaha marka waxay koranaysaa waxay kugu jeclaanaysaa adduunyo marka garanaysaa in kubadda taasbeemka jacayl bay waxay ka dooratay deem garanaysaa lacag bay ka dooratay marka hablaha waxay leedahay jacaylka iyo kala garta dhaqaalaha oo marka jacaylku dee waa garanaysaa wax tagaya maaha laakiin adduunka la helaa la waayaa oo wax tagade marka maansadu waxay ku bilaamaysaa adduunyadan kor u hayaansan kabaha loo talay kunkaasa ninkii adduunyadan kor u hayaansan kabaha loo talay kunkaasa ninkii kumbadee korkeeda mudiya maalmaba ku reeyey karuurkeedana ka maalay hadhow buu kiiriyaaye anna karkay igu beertay maanta haddaan kalwiyoo tilmaamo kolkay waxyihiin u sheego talow kalsooni wax maygu beeri hablaha koonka afrikaadba yartaan keligeed jeclaaday yartii kalgacaylka beertay yartii qalbigayga kaabtay kashkiya laabtayda jiiftay markay keligeed dareentay inuu u kurbaday jidhkaygu intay karahsatay warkayga ma tidhi kane aniga maaha qalbiga ruuxii ku kooban jidhkana kelikele u haysta karkuu kugu beeray adiga haddaanu kuubaba ogaynba karaahiyo taagan weeye mar kale uu ka toobadkeeni wanaagga qofkii ku saara xumaantana kaala weecda adduunyo ka doorsa maaha abaalkiisana kas maaha haddaad kulankii dhexdeenna kalgacalkii aan abuuray muddada koolkoolinaynay itidhi ballantii ka baxay ballantii ka baxay jacaylkaagana kaxayso taladiisa aad ku goysay kuftaye na hadda kuftiya kibriyo ku jabinin markaa garaysa halkaasay maansadii caga dhigato kaasi wuxuu ahaa abwaandaadaheeye mid ka mid a dhallinyarada gobolka togdheer ee hal abuurka leh kolley shakhsigan waa arkaysaan waa shakhsi aad culus ilaahay hibo ku manaystay maasooyinka gabayada bedelaada abwaan kelmadaada u dambaysa akhyaar badan bayna daawanaysaa inagu xidhan maxaad inagu saafeeraysaa kelmadeeda ugu horeysa horta magaranaysa akhyaartu meel kastoo ay joogto waan salaamayaa aadna waan ugu magaranaysaa waan soo dhaweynayaa waxaan kaga tegayaa bulshada intii yarayday macaanayn tahayd dee naga macaaneeya yaa waan isfahmaynaa haddaba barnaamijka xiga waxaa kala socon doontaan yol t v kaan youtube-ka ku leenahay aad waxaan kaga tegaynaa salaan qiimo leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gaabta barnaamijka waxaa inoogu martay ahaa abwaan daadaheeye oo ka mid a abwaanada da'da yar ee gobolka togdheer waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo